بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي mahad subxaana watacaala marka hore alxamdulilah ilaahayna maqabkana keenay dalkii igu soo celiyey ilaahaga inta maqnaa raxmaadkii keenay waxaan hubaa haddaynu shukriga badino in ilaahay subxaana watacaala deeqdiisa inoo badin doonaan rabaa dee waa anugu safarkan tegay nasasho iyo shaqaba u lahaa alxamdulilah arrimahan u tegayna guul baan ka soo gaaray alxamdulilah talabaad dee laba safar baa jiro safarkii madaxweynaha iyo wafdigiisuna dee guusha inoo muuqatay la gaaray waa guul ilaahay subxaana watacaala somaliland u soo baxday waa iftiin inoo soo baxay oo ku yimina doorashooyinkii aan sameynay ee nabadgeda ku dhacay ee la isla wada ogolaaday iyo subxaana watacaala ilaahay buqcaddaa una siiyey ina dejiyey ee barakaysan ayay ku yimaadeen markaa iftiinkaa baxay iyo rajadaa muuqata waxay ku xidhantahay kulba si gudaheenu yahay haddaynu tafaraaro keenno haddaynu isxamili weyno haddaynu sharci ku socon weyno haddaynu ilaa qof wuxuu doonuu sameynayaa oo guduhu nabadgelyadu xumaato ee dadkaas iyo deeqda inoo socotaana way iska socon doonta markaa madaxweyne waan arkiyey inuu sidii magaranaysaa ay generaal aysan awar generaalkii ciidamada maraykanka ee dagaalkii labaad markuu guusha gaaray inuu gaaray dusha madaxa kala soo baxay waa arkiyey inuu sidii madaxweynihii North Korea la daba ordiyey security daba ordiyey waa arkinay waa maqliyey intaasoo madaxweyneba iyo qaar kaleba uu leeyahay fisaalihiis way leeyihiin laakiin waxaan leeyahay dalkan sharci ku soo soco doorashadii madaxweynaha qabo yaanu hawadaadu damacaagu yaanu nabadgelyada aynu hayso iyo khayrkaas soo socda yaanu inaga baabiini baan ku leeyahay si kale markaan kuu sheegayahay dalkan nabad baa lagu haystaa madaxweynaha iskaa soo horeeyey waxay ka tegeen legacy doorashooyin bay qabteen nabadgelya muran badan ma jirin maanta wadadoodii mar baan ku leeyahay waxaan suurtagal ahayn oona marayn oo soconayn oo keeni doonta dhibaato somaliland u keento ha ku dhaqaqan sharci baan ku kala soconaa sharci baa lagu heshiiyey sharciga ku socon ku leeyahay sharciga ku socon haddaa sharci ku socon weydid dee markaas wax laydin kala qabanaya ma jiro saasaan ku leeyahay ilaahay baan ku mahadnaqnaa roobka ilaahayna siiyan ku mahadnaqnaa shacabka reer somaliland ee soddonkaa sano u soo dhawa adeegay aynan biyo siinin aynan tacliin siinin aynan caafimaad siinin ee nabadda iyo rajada ku nool ha ka dilin baan ku leeyahay ha ka dilin baan ku leeyahay inaa lillahi wa inaa ilaihi raajicuun saaxiibkay reer somaliland cabdiqaadir xaashi ee inoo bilaabay in dalka wax la gashado waa ogtiino halka deegaankaasi cidlu ahaa waxaa camiray markuu dheelkaa dhisay berberow ka dhisay burcuu ka dhisay wuxuu ahaa nin dal jecel nin ahli diin buu ahaa ilahay waxaan ka baryaa subxaantu ilahay jannada ka waraabiyo inaga samiri iimaan inaga siiyo qoyskiisa samiri iimaan ka siiyo ayaa xaaskiisa xaliimo aad iyo aad u dagashana waxaan leeyahay xaliimo samiri iimaan ilaahay naga wada siiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu